Sheekada 19aad Nebiyaashii. Mar walba Ilaahay wuxuu reer banu Israa'iil u soo diri jiray nebiyaal. Nebiyaashaasina fariinta ay ka maqlaan Ilaahay waxay u soo gudbi jireen dadka. Eliya markuu ahaa nebi, waxaa boqorka guud ee reer Israa'iil ahaa Eehaab. Eehaabna wuxuu ahaa nin xun oo aan xaqa ku dhaqmin, oo dadka ku dhiirageliya inay caabudaan ilaah been ah oo lagu magacaabi jiray Bacal. Eliya wuxuu boqor Eehaab ku yidhi, Ilaah wuxuu ciqaabi doonaa dadka, oo roob ma imaan doono ilaa aniga aan dhaho mooye. Tanina waxay ka xanaajisay Eehaab, wuxuuna go'aansaday inuu dilo Eliya. Kadib Ilaahay wuxuu Eliya ku amray inuu duurka u baxsado oo meel biyo mareen u dhow isku qariyo. Eliya wuu sameeyey wixii uu Ilaah ku amray. Subax kasta iyo habeen kastana shimbiro ayaa u keenayay rooti iyo hilib. Eehaab iyo ciidankiisiina waxay raadinayeen nebi Eliya, laakiin ma aysan helin isaga. Abaar aad u daran ayaa dhacday oo xitaa markii dambe meeshii biyo mareennadii ay qalaleen. Kadib Eliya wuxuu aaday dal daris la ahaa. Halkaas waxaa ku nooleed gabar carmalad ah iyo wiilkeeda, waxaana ka sii dhammaanayay raashinkoodii abaarta darteed. Laakiin aad ayay u xanaaneeyeen oo ay u marti sooreen Eliya. Kadib Ilaahay ayaa aad u quudiyey reerkii, oo burka iyo saliidda kama dhammaan jirin. Raashin ku filan ayay haysteen intii abaartu socotay oo dhan. Eliyana in badan ayuu la joogay iyaga. 3 sano iyo bar kadib, Ilaahay wuxuu Eliya ku yidhi, waxaan keeni doonaa roob ku laabo waddankii reer Israa'iil oo la hadal Eehaab. Markuu Eehaab arkay Eliya wuxuu yidhi, waa kan ninkii dhibaatada keeni jiray. Kadib Eliya wuxuu ugu jawaabay, adiga ayaa ah ninka dhibka badan. Adigu Ilaaha xaqa lagu caabudo ayaad rumaysan la'dahay, oo waxaad u cibaadaysataa sanamka Bacal. Hadda waa inaad keentaa dhammaan dadka reer Israa'iil buurta Karmaal. Dhammaan reer Israa'iil oo ay ku jiraan 450 nebiyaashii sanamka Bacal u adeegi jiray ayaa yimid buurta Karmaal. Eliya ayaa dadkii ku yidhi, ilaa goormee ayaad maskaxdiinna beddeli doontaan? Haddii Ilaaha xaqa lagu caabudo ee Yahweh yahay kan runta ah, caabuda isaga. Laakiin haddii sanamka Bacal yahay ilaah, isaga caabuda. Kadib Eliya wuxuu ku yidhi nebiyaashii beenta ahaa ee Bacal, neef dibiya khala oo u diyaariya wanqal ahaan, laakiin wax dab ah ha diyaarinina. Aniguna sidoo kale. Markaas kadib kuwa uu Ilaahay dab u diyaariyo ayaa aaminsan Ilaaha xaqa ah. Kadib nebiyaashii beenta ahaa ee Bacal ayaa neefkii gowracay oo isku diyaariyey hawshii, wax dab ahna ma aysan shidin. Nebiyaashii beenta ahaa ee Bacal way tukadeen, iyagoo baryaaya Bacal oo leh, na maqal Bacalow. Maalintii oo dhan way tukanayeen oo xitaa midiyo ayay isku jareen, laakiin Bacal ma uusan u soo jawaabin. Markay maalintii dhammaatay, ayuu Eliya diyaariyey allabarigii Ilaahay. Kadib Eliya ayaa Ilaahay baryey isagoo leh, Ilaahayow, Ilaahay nebi Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub abuurayow, na tus maanta inaad tahay Ilaaha xaqa ah ee reer Israa'iil, oo aniguna aan ahay adeegahaaga. Ilaahow ii jawaab si dadkan ay ugu cimro qaataan, kuuguna rumaystaan inaad adigu tahay Ilaaha xaqa ah. Isla markiiba Ilaahay ayaa samada ka keenay dab holcaya, waxayna gubtay hilibkii, qoryihii iyo dhagxaantii. Markay dadkii arkeen, dhulka ayay ku wada dhaceen iyagoo leh, Ilaahay ayaa sarreeyo, Yahweh ayaa ah Ilaaha runta. Kadib Eliya ayaa dadkii ku yidhi, nebiyada beenta ah ee u adeega Bacal yuusan midna meeshaan ka baxsanin. Kadib dadkii way qabqabteen dhammaantood, waana la wada dilay.
kadib Eliya wuxuu ku yidhi boqorkii Ahaab, ku laabo gurigaaga, roob ayaa imaan doonee. isla markiiba cirka ayaa madoobaaday oo roob xooggan ayaa yimid. kadib Ilaahay abaartii wuu ka dulqaaday dadkii, wuxuuna u muujiyey inuu yahay Ilaaha runta ah. markuu Eliyah dhameeyey shaqadiisii, Ilaahay wuxuu doortay nin la dhihi jiray Eliisha inuu u noqdo nebigiisa. Ilaah wuxuu Eliisha siiyey mucjisooyin fara badan. waxaa ka mid ahaa markii Naamaan oo ahaa taliye ciidan oo cadow ahaa uu ku dhacay xanuunka maqaarka oo aad u daran. wuxuu maqlay nebi Eliisha iyo mucjisaadkiisa, kadibna wuu u tegay isagoo weydiisanaya inuu caafiyo. Eliisha ayaa ku yidhi, orod oo tag webiga Urdun, kadibna 7 jeer gal biyaha webiga. Naamaan aad ayuu uga xanaaqay, waayo waxay ula muuqatay inay tahay doqonnimo, laakiin maskaxdiisii ayuu beddelay oo 7 jeer ayuu webiga galay. markii ugu dambaysay uu ka soo baxay, Ilaahay ayaa caafimaad siiyey. waxaa jiray nebiyaal badan, dhammaantoodna waxay dadka u sheegi jireen inay joojiyaan caabudista asnaamta iyo inay cadaalad iyo naxariis isku muujiyaan. inta ugu badan dadka ma aysan maqlaynin amarka Ilaahay, waxayna xumeynayeen nebiyada loo soo diro, oo xitaa mararka qaarkoodna way dili jireen nebiyada. mar ayaa waxaa dhacday in nebi Yareema lagu riday ceel khalalan, oo halkaasna lagaga tegay si uu u dhinto. laakiin boqorkii ayaa ka naxay oo ka soo saaray inta uusan ku dhiman halkaas. nebiyadu waxay si joogto ah uga hadli jireen Ilaahay, inkastoo ay dadku necbaayeen. waxay dadka uga digi jireen in Ilaahay baabi'in doono haddii aysan toobad keenin. sidoo kale waxay dadka xasuusin jireen in Ilaahay ballan qaaday inuu u soo diri doono Masiixa.